halkan waa guriga Xamdi Maxamed Faarax waa ardayad sanadkan qalin jibisay oo waxa ay ka qalin jibisay fasalka saddexaad ee dugsiga sare waxaana ay gashay imtixaanka dawladda maanta gurigan waxa ka jirta murugta Xamdi kadib markii kufsi loogu geystay magaalada Muqdisho isla mar ahaantaasina la dilay waxaan idin soo gudbin doonaa daawadayaal warbixinta dhabta ah iyo sida u dhacay kufsiga Xamdi halkan daawadayaal waa halka sida dhabta ah nolosha Xamdi uga jiray qolkan waa qolka sida gaarka Xamdi ay nolosheeda ugu tacaamuli jirtay sariirtan waa sariirta Xamdi ay jiifin jirtay sidoo kale buwaagtan halkan yaalo waa qaar ka mid ah buwaagta wax ku baranaysay waana galaaska ugu dambeeyay ee dugsiga sare oo sanadkan Xamdi ay ka qalin jibisay waa Xamdi Maxamed Faarax ee gabadha la kufsaday buugan waa buug fiiskiisa waxaad u jeedaan in galaaska 12aad waxay ka mid ah Xamdi ardayda sanadkan qalin jibiyay oo galay imtixaanka dawladda sidoo kale boorsadan waa ku jiro dharka Xamdi oo waxa ay ahayd Xamdi nolosheeda meel ku kooban qolkan 10 sano muddo ku siman ayana ku sugan tahay magaalada Muqdisho waxaana loo sheegay daawadayaal inay kufsi u geystaan ugu yaraan 2 qof oo lagu eedeeyay kufsigaas haatana waxa u xiran ku dhawaad 6 qof sida ay noo sheegeen ehelka oo aan la hadalnay Xamdi Tahliil waa maamo soo korsatay Allah u naxariistay Xamdi Maxamed Faarax oo gurigan ku nooleed waxa ay TV-ga Shabeelle faahfaahin ka siinaysaa siday wax u dhaceen iyo Xamdi sida loo kufsaday dilkeedu sida u dhacay Xamdi waxaan ka ogahay inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun baan leenahay waa dhacdo xanuun badan oo qof kasta Soomaaliyeed ay ku dhacdana aad u xanuujinayso waana midaan la isweydiin qof kasta ay ku dhacdo waana dhacdo xanuun badan dhacdadan ugu dhacdaanaka waxa ku dhacay caday maxay ahaayeen waxa ku dhacay kulay anaga in dabaq laga soo tuur 8 biyaanaha loo sheegay waa gartay waa ka kufsi ma jira waa la kufsaday waana la soo riday sida naloo sheegay saasoo waxay ka tantay kulay anaga hadda meel aan ku ogeyn ma jirto inay gabar ama socoto ama meel aadan qofan ama ku ogeynay ama aan ku xisaabtamayna ma ahayn inay ayadeed dhar u soo dhaqaydo bay noo sheegtay jimca kastana ay aadi jirtay u soo dhaqay jirtay hadda anaga waxa geeyay hadda maanta ognahay meedna ma waraysan karno wixii dhacan ilaahay baa qaadi ku anaga waxba kama aan ogin mas'uuliyad waa ku haysay qof la soo korsaday akhlaaqan edeb la wax la baray lagu soo dadaal ilaa 10 sano in wax la soo barayo lagu soo dhibtoohayay oo ogtahay waaye wadada ama laatay kuwa xeerka waxbarashada dugsiga sare dhamaysa hadda jaamacada u diyaar gareynaysa hamiyad jaamacadeedina lahayd wallahi ilaahay baa qaayin ku aniga hadaan ogahay hal iyo labo wuxuu yahay waa soo qabsanayo samaha rajadeena kulay waa 100% in ilaahay uu qof anaga waana la dulmiyay waana la dhibaatadina loo geysan in ilaahay noo soo ifiyo baan rajaynayna marnaba ma qabaani haysaawo ay ku bixi jirtay gabar waa taa wax waa shukaansanaysa laakiin wax uu guriyeed ugu imaan baa shukaansan jiray waxaanaga inay meel aad aan ku ogeyn ma jirto waxaan la taaganahay Cabdiraxmaan Xuseen oo abti u ah Xamdi Maxamed Faarax Allah u naxariistay oo kufsi wadareed lagu geystay gudaha magaalada Muqdisho isla mar ahaantaasina la dilay ku soo dhawo TV-ga Shabeelle waxaadna kadib iga warantaa ilaa iyo hadda baarista la sameeyay booliiska iyo CID-da maxay la wadaageen waa ku dhawahay in la yaraajoon saakay ilaa xalay waxa ku jirnay arin aad u xanuun badan oo dhacday aad u xanuun badan gabar aan abtu u ahay inta la kufsaday kufsi wareed iyo dil loo sii geystay laamaha amniga oo la wadaagay xog gaar waxay noo sheegeen in ilaa saakay la hadda ay qabteen dad ilaa 6 qofood lagu qiyaasay oo 2 dumar yihiin oo dadka hoteelka iyo ka shaqeynaya tahay oo ayaga xogtaas ay ugu soo gudbiyeen gabadhana sidaan macnaha baaritaanada ku sheegnay waxa kufsi loogu geystay 2 ilaa 3 nin oo kufsi wareed u geysteen laamaha amniga marka intaas ay noo xaqiijiyeen wali ay dhahan hordhac ahaan intaas ay noo siiyeen waa ka rajaynaynaa inay cadaaladda iyo ragii kufsigaas geystay inay cadaaladda keenaan oo dadka soo hordhigaan sida la sheegay daawadayaal dabaqan aan ag taaganahay waa dabaqa la tilmaamay in laga soo tuuray Xamdi Maxamed Faarax oo ah gabadha la kufsaday kadib dabaqa laga soo tuuray sida ay sheegeen booliiska Soomaaliya baaris ayaa haatan socoto Xamdi waxa ay ku nooleed xaafadda Raadeerka degmada Daynile ee gobolka Banaadir su'aalo dhowr ah ayaa wali ku gadaaman dhacdadan kufsiga la xiriiro Xamdi Allah u naxariistay maanta waxa lagu aasay xaafadda Raadeerka degmada Daynile ee gobolka Banaadir Maxamed Ali Maxamed TV-ga Shabeelle Muqdisho